ومالنا حتى اسبوع قرب بدنا يالانay waxaa sameeyay markaas 5700 dollar saageeska arkirtay dad badan waxay isweydiinayaan forex sida horumar uu gaari karaa maalin stop loss ay ugu dhacdo subax walba soo kaca shaashada ay hortaaganaa isdhiibin haddii aad forex trader tahay maalmaha kamid ah dabcan waa gaari doontaa horumarka ama mustaqbalka kaleeda kaliya waxa u baahan tahay inaad isticmaashid risk managementigaaga. Assalamu alaykum wa mid Ibrahim soo dhawaad muuqaal kale day in a life of forex trader laakiin maanta muuqaalka halkan ay ku bilowdaan oo weekend actually waxaan marayaa 9 saac maalmeed waa maalin xadda isbuuc qurux badan ayaalanay waxaa sameeyay markaas 5700 dollar saageeska arkirtay waxaa ilaahay mahad leh sidoo kale kaliya lacagta maan sameeyeen ardayda iyo akademiyada inta asla tirgelin oo idil wasmeesay sida geesaha ka arkirtaa wuxuu ahaa isbuuc very successful haddii aad ogtiin muuqaalka hore waxaan soo sharaxnay qaabkii markaas aan u qasaarnay isoo kale maalinta aan qasaarnay sidii maalintaas maalinkeena ay ahayd maalintaas muuqaalkaas waxaa ku sheegay qasaaro ama faa'iido waxaa laga baahan yahay in qofkii aad ahaatid inaadan isbedelin in shucuurtaada marnaba ay kor u qaadmin hoosna aysan u degin haddii soo kale aad qasaartidna lama rabo in maskaxda aad isgelisid waa qasaare wax walba hadhow meesha ku burburisid forex-ka mar walba waxaa sheegaa waa sidii waxaa usoo qaataa dukaan ku furno kale for example kala customer ku imaaday bahashana iibisa ka soo qaado tasbiixda okay by the way tasbiixda bas insha Allah meesha faa'iido kaliya ay soo gaari karno aakhira adduunka aakhira meesha kulli meel gaarto for example bahashana gadaa $1 gadaa okay qofa ku imaaday $1 ka siisa ama qofa ka xaday meesha ku dhamaad Soomaali marka ma waxa sameynaysaa in dukaankii alaabta ku taala dhan mutuuleysa maadaama hal xabo laga xaday ama hal xabo ku khasaartay $1 aqsaad $1 aagad waa ma waxa sameynaysaa khaladkaas dhacay waa ka fijignaanaysaa waxaana isku diyaarinaysaa biri si qalad noocaas markaas uusan u dhicin hadda sidoo kale tradingka waxaa loo baahan yahay in haddii aad qasaartid ma ahan account-kaaga inaad gubtid ma ahan inaad wax walba daaqada ka saartid balse waxaa laga baahan yahay inaad isdejisid khaladkii iyo khasaaradii aad samaysay in aad raadisid aydan markaas inaad sixi kartid marka forex-ka inta badan waxay u shaqeysaa maskaxda psychology qofka so psychology mar walba haddii intact oo yahay of course lacag waa samayn kartaa maalmaha way kala fursad fiican yihiin ma ahan 5700 dollar ma ahan dasmi siniin soo socota idan shan kale ma ku tashanaa laakiin muhiimadu waxay tahay rules-ka inaa raaco haddii rules-ka $1 siiyo of course waa ku dhignaanaya haddii rules-ka $10 siiyo waa ku dhignaanaya muhiimadu weyn waxay tahay ku sheegay in mindset-kaaga hal meel u taagnaa inaadan isla bedelin inaadan isdhiibin haddii fiiri ciyaartoyda kale waxaa lagu tababaraa in suulkooda labada hore saas ugu taagnaadaan ciribtooda marnaba korna u qaadanta sababtoo qofka ciyaartooyga ah waxaa la rabaa markii Brownie la soo crosso markii ciribtiisa lugta ay ka qaadan tahay Brownie haduu control karaa moveskiisana waxbay markaas u soo ziyadinaysaa laakiin fiir waa wax yar waxaan ognahay ciyaartooyda dad yar inay guuleystaan forex-kana waa lamid waxyaabaha yaryarka ay ignore aan iska indhatireyno waxay keenaan faa'iidada difference u dhaxay qofka amateur-ka iyo qofka professional-ka wax weyn oo balaayo ah maaha qof waxa arkaysa waxyaabo yar oo ka tagaa waxyaabahaas yaryarka ama waxyaabaha yaryarka trading-kiisa uu ku ziyaadina ama waxyaabaha yaryar oo ka tagaa ay hadhow waxay keenaysaa qofkan in marka faa'iido badan oo sameeyo marka shada inta waxaan aqoon sinaa meeshan ma ahan bragging ma ahan nolosheeda waa loo kuna sameeyaa ma laakiin muhiimada aan ku tusay waxay tahay mindset-ka ka dambeeyay in lacagtan aan sameeyo sidaas waaye yes of course koox waa soo qasaare oo qasaarada waa nil sheegay muuqaalna ka diyaarina marka forex waa sida suuqo kale maalin waa hoos maalin waa kor laakiin muhiimadu weyn waxay tahay maalinta hoos ay tahay inaad xakameyn kartid maalinta kor tahayna in markaas aad isku day kartid in qasaaradaada yani faa'iidada maanta in haysan kartid dad waxa arkaysaa $1 maanta sameynaa hadda uu baxaa kunki gubaa hadda 2000 kala warwaad inuu sameeyo yani uu sii qasaarnaa aamin so maxaa ku waalay marka haddii suuq wax fiican aan ka arkeenin $1000 iska qaado $500 iska qaado $20 iska qaado dad badan waxa arkaysaa ayagana ku lahaay account-kiga meel uu yariyahay $100 ku tirgelina trade aad kun axminus aan $2 sameeyna of course waa la soo wada meeshaas $2 aan wax soo sameyn jiray so $2 marka joogtaysid hadda $200 joogtayn kartaa level-ka $200 waa gaari kartaa laakiin haddii $200 aad joogtayn weysid way kugu adagtahay in level-kii $200 markaas inaad gaartid marka insha Allah mar walba waxaan ka hadlaa inta badan psychology-ga iyo markaas waxaaba ay kugu qaadan lahayd mindset ahaan si lacag u samaysid marka insha Allah noloshan oo trading-ka ka arkaysiin Lamborghini arkaysiin qof pitch fadhiyo oo
cocktailkiisa cabaayo, main Ibrahim oo gaaris kaga socdo, daily life kusoo duwaayo, shaah horyaalo, wax badan ka horay noloshaas in la sameeyo asli fahmi soo ma. Marka yeah of course noloshaas biyaha in la cabo waxa ka horeys in ceel la qado, in la soo safeeyo, in guriga la keeno, in weel lagu soo shubo. saasoo kale forex hadda markaa faa'iido samaysid waxyaabo badan ka horeyso, waxyaabo badan. Masha Allah guys, maalin aad iyo aad u dheer ay ahayd. Marka I think muuqaalka in uu meeshaan ku dhamaan doono. Insha Allah intaan meeshaan ka tegin waxaan sameyn doonaa ama isku dayaa in aan markaas sameeyo weekly outlook oo aan u sameeyo ardaydayda aan isla wada tirigelino master room isla wada jirno. Signal ma bixino, kelimada Medifex signal ma siiso. Kaliya waxaas la tirigelinaa ardayda kelimada ku jiro oo istiraatiijiyada barta. Sababta aanan signal qaleel aan u qoyna kelimada ama dad kale aan signal ugu gadinna waxaa kamid ah waxaa fiican qofka markuu wax ku barayo in uu ku baro qaabkii uu ku lumaysan lahayd intii aan ku siin lahaa hal xabo malaay birna soo baahaleen. Marka aniga istiraatiijiyadana qofka markuu la isticmaalo uu og yahay wax suuqa markaas uu garabo sidoo kale marka trail hagaajinayna qofkaas uu fahmi karaa qaabka iyo reasons ka dambe trail markaas in isla hagaajino. Marka saadabteeda signal ma bixino. Marka insha Allah hadalka aan soo yareeyo hadda insha Allah waxaan isku day doonaa inaan sameeyo weekly outlook ardayda markaas aan u diro. Waxaan rabaa inaan mid ku soo xasuusiyo haddii aad qasaartid ma ahan macnaheeda in end of wall ay tahay adduunka maalinta ugu dambeysa. Sidoo kale haddii aad faa'iidid ma ahan macnaheeda in isbuuc soo socdo aydan faa'iido doontid. insha Allah channelka inta ku jirno muuqaalo badan oo noocan arki doontaan faa'iido iyo khasaare inta la kulano iyo sidoo kale dhiirigelin. Purpose-ka muuqaalkan aan u diyaariyay waxa weeyaan in aan ku dhiirigeliyo dhalinyarta traderska ah ama kuwa bilaabi doona dhiirigelin ahaan markaas in muuqaal noocan ah ugu diyaariyo. ma ahan macallin walba nolosha inay saan u qurux badan tahay saan dhalo badan tahay nolosha stress ay wadataa buuq ay wadataa yes of course laakiin xaalad walba waa in aad soo gudbi kartaa. insha Allah muuqaalkeena halkaas ayuu noo eegyahay. insha Allah thank you so much for watching.